gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan waxa uu soo farageliyay khilaaf dhawaanaha ka dhex jiray ururka haweenka gobolka Hiiraan. Wariyahayga Cismaan Aadan Carays ayaa warkaas ka soo diray Beledweyne oo xarun u ah Hiiraan. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay khilaafkan muddo soo jiitamayay u dhaxeeya ururka haweenka gobolka Hiiraan isagoo sheegay in xilligan ururka haweenka ay gudoomiye ka tahay Farxaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ururka haweenka gobolka Hiiraan oo iyaga taageersanaa ururka haweenka waxaan u marartay oo wax badan soo shaqeysay oo gobolka Hiiraan wax badan ka soo qabatay oo baahi badan soo qabatay oo dugto badan soo qabatay ugu dambeyntii waxaa sidoo kale ka hadlay xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabelle waxaan aad ugu faraxsanahay in hoogaa khilaaf oo jiray oo ururka haweenka ka dhex jiray oo maanta muxuu ahay xal laga gaaray oo gudoomiyaha arrimaha bulshada oo goobjoog yahay hooyada ka hadashay inay gogol u dhigayso haweenka ka soo horjeeda inay soo galaan gogol lawada oo la wada hadlo tawfiiqana waxaan u soconaynaa horay gadaal uma noqonayno wadanka waxaan rabnaa anagoo da'yara u istaagnay inaan gobolka aan ka dhex muuqano inaan shaqeyno inaan ummadda dhiban aan garbaha qabano ma rabna inaan gadaal u noqono waxaan kula talinayaa gabdhaha walaalahay ah oo darbiyada ka hadla inay gogol nabadeed soo galaan inay wada hadal ila yeeshaan kadib waxaan waana shaqeynaynaa lugaheena tiirka u adkaysay saacadaan laga bilaabana midnimaan ku shaqeynaa iyo ummadda reer Hiiraan oo is wada Cismaan Aadan Carays idaacadda TV-ga caalamiga SBC Beledweyne.